saaxiibtinimo oo kubadda kolayga oo saddexdii beri ee lasoo dhaafay uga socday garoonka Mira Awaare gabdho kala matalayay Kismaayo iyo Garowe ayaa garabta la soo gabagabeeyay iyadoo guushu ay raacday kooxdii Garowe matalaysay wasiirka ka socday Puntland iyo Jubbaland iyo hormuudka ururada haweenka ayaa ka qayb galay soo xiritaanka koobkan saaxiibtinimo ee kubadda kolayga Sucaad Cabdulaahi Galow oo madax ka ah Women Sports qaybtiisa Soomaaliya kana mid ahaan jirtay barisamaadkii ciyaartoydii kubadda kolayga ee qaranka Soomaaliya ayaa ka warbixisay waxa ay uga dhigan tahay waa farxad waa rayn waa horumar gabdhihii Soomaaliyeed oo isku tashaday gabadh ciyaaraysa gabadh tababaraysa gabadh maamulaysa gabdhihii madaxda wadanka iyo gabdhihii yaryaraayo daawanaya waa inoo bilaabatay in wax qabadkeena iyo horumarkeena in laga shaqeeyo nabadeynta dalkeena waxa mas'uul ka ah hooyooyinku waa gabdhaha yaryar ee maanta ee loo baahan yahay in aqligooda iyo maskaxdooda wax caafimaad qaba lagu shubo iyaga berito waxay keenayaan madaxweynihii beri waxay keenayaan dhakhtarkii beri waxay keenayaan askarigiina ilaalinayay wariyayaashii maskaxda caafimaadka qabta iyo jirka caafimaadka qaba wuxuu keenaa wiil yaroo wanaagsan iyo gabadh wanaagsan wasiir dowlaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Puntland Farduuse Cismaan Cigaal ayaa ku tilmaantay in koobkan uu yididiilo u yahay gabdhaha haatan tababarka ku jira oo Puntland iyo Jubbaland kala matalaya ay maanta halka kan ku ciyaarayaan labadii beri oo la soo dhaafay ciyaar qurux badan oo saaxiibtinimo leh oo akhlaaq leh oo wanaagsan oo asturan ay dhamaantood ay soo bandhigeen ayagana waa u hambalyeynaya waxaa soo baxay gabdho basketball muddo dheer kadib in maanta ay laba xul oo Puntland iyo Jubbaland halkan ciyaar loogu soo xirayo runtii waxay tahay kuwa idinka dambeeya oo tababar ku jirna yididiila u tahay idinkana waxay idin tahay inaa hamigiini gaarteen horena halka uga sii socotaan gabdhahan ayaa dhowrkii beri la soo dhaafay waxa halkan uga socday koob saaxiibtinimo oo kubadda kolayga waxaana uu galabta ku soo gabagaboobay Joe Farxadeed Sikriyo Nuur Farax Goobjoog Garowe